السلام عليكم جماعة وناكسن عشر كنا جماعة مانتا waxa aynu ku soo qaadanayna shan arrimood oo loo baahan yahay qofka bini'aadanka inta ayna soo gaarin ka hor inuu ka sii hordegdego shanta arrimood waxaynu ka soo qaadanaynaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu inoo sheegay oo uu yiri baadiru bil a'maal wixii amal ama shaqo aad qabanaysaan iyo wixii qorshayaal idin dejisan kala hordegdega inta ayna idin soo gaarin shantan arrimood si degdeg ah u sheegaynaa maxay kala yihiin shanta arrimood arrinka koobaad waxa weeyaan wuxuu nabigu ku sheegay waa faqran munsiya waa faqri nolosha dhan ku ilowsiya طبعا qofku marka uu ku mashquulsan yahay shaqada iyo faqri saa'ida marka uu qofku helo ee uu ku mashquulo inuu shaqeysto xataa waxa laga yaabaa inuu iloobo inuu ilaahay xuso subhanahu wa ta'ala arrinka labaad uu nabigu noo sheegay waa arrinka cagsigiisa waxa weeye awqinan mudghiya waa ghaninimo iyo hanti qofka kibrisa qofku waxa laga yaabaa inuu moodayo marka hadduu helo maanta xoolo ama qof hantila uu noqdo inuu matala salaad tukan lahaa ama ilaahay aad u xusi lahaa laakiin waxaynu aragnay in fara badan oo kamid ah dadka hantilayaashu ay xataa kaga mashquulaan xisaab inay ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaan arrinkaasina waa arrinka labaad ee inta aanu qofka haleelin loo baahan yahay inuu kasii hortago waayo qofku marba marka ka dambaysa ee uu sii koro noloshiisu ay sii bedesho mashquulkiisuna uu sii badanaya arrinka saddexaad uu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan aw maradan mufsida qofkii waxa laga yaabaa iska shaqaysanaya ama wax qaban lahaa inuu xanuunsado taa waxa si fiican maanta u garanaya qofka xanuunsan ee hospitaalka jiifa ayaa garanaya faa'iidada uu leeyahay caafimaadku marka inta aanad xanuunsanin ee una xanuun meel ku dhigin ayuu nabigu inoo sheegaya inaynu ka hordegdegno qodobka afraad waxa weeyaan aw haraman mufanida uu nabigu yiri qofkii inta aanina da'du qabanin oo dhalinyarada yahay nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa inuu waqtigiisa ka faa'iideeyo waayo mar haddii awooddu ay ku gabto oo dhalinyarnimadii ay adka waqtigii ilaa waa waqti dhalinyarnimada waqtigii aad dhaafto waxaad qabsan karaysaa male xabada ugu dambaysa waxa weeyaan ee loo baahan yahay inuu ka taxadirno wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam aw mawtan mujhiza waa geeri degdega oo qofka si degdega adduunyada uga kaxaysa imisaynu garanaynaa qof shalay noolaa oo aan maanta noolayn oo lagu leeyahay waa caafimaad qabay caafimaad qabo ku seexday laakiin aanan ku soo kicin waxa ku dhacay waa mawt mujhiza geeridu khalaas mar haday ku hesho wax alle iyo wixii aad haysay oo dhan iyo shaqooyinkaagii iyo wixii aad qaban lahayd oo dhan halkaas kaaga wada joogsanayeen marka waxa la inoo baahan yahay dhalinyaro inta uu nabiga calayhi salaatu wasalaam shanta uu inoo sheegay intaynaynu soo gaarin inaynu waqtigeena ka faa'iideyno adduunku maanta waxaad moodaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam inay si fiican u tadbiiqiyeen oo si wanaagsan ay ugu dhaqmeen waxaynu hore uga hadalnay buugga la yiraahdo 12 toddobaad oo aynu halkan channelkeena aynu hore u soo dhignay buuggaas wuxuu ka sheekeynayaa waa in sanadku ka waran buug leeyahay sanadku haddii uu yahay kaliya 12 week ama 12 usbuuc waa wax gaaraya waxa weeyaan waa 3 bilood marka adduunyada imka shirkadku waxa ay ku xisaabtamaan 3 biloodba in la sameeyo xisaab xidh inagu imka maanta waqtigan aynu taaganay waxaynu sii soconaa waa bishii labaad ee sanadkii miilaadiga ayaa dhammaad ku sii dhow imka marka haddii loo eego buugga iyo qaabka imika adduunyada u socotay loo xisaabtamo waxa ay ka dhigan tahay dhammaadkii sanadka imika waxa kaaga harsan hal bil oo kaliya nagana waxa laynaga sugayaa marka 3 bilood imika inoo dhamaanaysa maxaad qabsatay waa in qof waliba uu ku xisaabtamo marka waqtigu waa inagu socdaa inta mid kamid ah intaanay la soo gaarin waxa laynaga rabaa in aynu dadaalo oo aynu waqtigeena sida aynu uga faa'iideysan karayno uga faa'iideyno maanta marka maxay inoo yaala bishaas ay nooga hadhay dhamaadkii sanadka markaynu soo xisaabtano qof walba waxa laga doonayaa inta bisha hadhay aad qaban karayso in aad qabato aad baad mahadsantiin halkaas maanta inoogu joogay cashirkeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh